السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الرحمن وكسعد والشير كسود هذا مركلة هي برنامج كأني أسبوع لها أنو كجه هذي جرني محاق عصب كوفيد 19 محاق عصب ستيت محاق صقرني أن آدي بدون هتسنتين وكهره إن هذا كان ستوصل نورا ساعتان أسبوع كستا وهذا وقت جينا النصيصة سأنو إذين أبديت كراينه oo aanu idila socodsiino maxaa soo kordhay maanta waxa aan ka hadli doonaa saddex qodob. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan state fairkii oo socda wuxuu bilaabmay 14 bishii April waxaan u socon doonaa ilaa iyo bisha May 4teeda. Qodobka ugu horeeya waxaanu kaga hadli doonaa state fairka iyo vaccine-ta sida uu dadka u siinayo iyo waxa laga rabo. Qodobka labaad ee maanta ka hadli doonaa waxa uu noqon doonaa waxa uu noqon doonaa sidee loo samaysanayaa appointment-ka ma walk-in ba ma uma baahnin yaa se la siinayaa talaalka oo xaq u leh. Qodobka saddexaad waxa weeyaan isaguna funeral-ka ama aaska oo iyaduna arrin cusub ku soo korodhay. Marka waa mahadsantihiin soo dhawaada shaah soo qaata bismillaahir rahmaanir rahiim. Marka waxaan ku bilaabi doonaa qodobka ugu horeeya oo ah state fairka. State fairku waxa socda hadda in dadku ay istalaalaan waxa ay furan yihiin 8 subaxnimo ilaa iyo 7 galabnimo. Way furan yihiin 8 subaxnimo ilaa iyo 7 galabnimo way furan yihiin state fairku. muxuu hayay appointment uma baahnid way wanaagsantiin appointment samayso laakiin hadii aanad samaysan waa lagu qaabilayaa oo waa lagu siinayaa talaalka. nooca talaalka aad heli doontaa waxa weeyaan Pfizer. waa Pfizer bay bixin doonaan dose-ka ugu horeeya halkaas aad ku qaadan doontaa waan idin la socodsiin doonaa dose-ka labaad halka aad ku qaadan doonto ma meeshaas unba. waxa kale oo rabaa maanta inaan idin sheego in markii hore zip code gaar ah baa la siinayay vaccine-ta laakiin hadda waxa la siinayaa zip code kasta. macnaha waa unlimited xuduud ma laha qof kasta oo taga meesha uu helayaa vaccine-ta. taasina waa qodob. qodobka kale waxa weeyaan aan rabo maanta inaan ka hadlo ay nagu cusub waxa weeyaan dadku waxay soo weydiinayaan balama ma u baahannahay halkeenu tagnaa muxuu hayay ballanta halkaad ka samaysanayso waxa weeyaan waxaad na soo wici kartaa annaga hotline-ka ayaad naga soo wici kartaa. hotline-kaygu waxa weeyaan 612-245-7308 aan ku celiyo mar kale numberka sidoo kale screen-kan soo dhigi doonaa muxuu ahaayay waxa weeyaan 612-245-7308 waa Soomaali qof Soomaali ah baa ka caawin doona oo ka qaban doona telefoonka. waxa kale oo aan rabaa inaan ka hadlo muxuu ahaayay qodobka ugu dambeeyo ah funeral-ka qofkii ehelkiisu dhintay ee u baahan in laga saacido funeral-ka dhinac kasta in laga saacido xagga financial-ka xagga procedure-ka iyo hanaanka iyo qaabka loo aasay qofka dhammaan waxyaalahaas oo dhan waxa ka caawinaya qof Soomaali ah oo ku tilmaami doona halkee la tagaa. marka waxaan rabnaa inaad naga soo wacdo numberka shaashada saaran oo ah 612-245-7308. qof baa ku caawin doona qofkaas ku caawin doona. marka waxaad samaynaysaa halkaas naga soo wici doontaa waxaan ku gudbin doonaa ama kula xiriirsiinaa dadka si tooska uga caawinaya dadka. waa number 1800 numberkoodu waxa weeyaan 1833-43-2053 iyagaanu kugu xiriirin doonaa waayo iyaga ah sida dadka sida tooska uga caawinaya. haddii aanad garanay annaga soo wici kartaa annaga iyaga kugu xiri doona markaan kugu xidhana sidaasaan lagaaga caawin doonaa. saddexda qodob baynu maanta ku soo koobaynaa
kala warqaadashadeenii ama is-update gareynteennii maxaa ku saabsan COVID-19-ka aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya inaad halkan si toosan nooga daawanayseen waa mahadsantihiin Ramadaan Kariim Ramadaan aydii macanaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh